بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa maalin jimco ah bisha Maarch waa 18 2016 waxaanu shirkan jaraa'id u qabanay diiwaangelintii aanu muwaadin ahaan xaq u lahayn dadka deegaankan aanu ka hadlayno ee Balgubadle oo loo diiday xuquuqdii ay u lahaayeen inay isdiiwaangeliyaan sababtoo ah waxaanu la kulanay cilado fara badan iyo caqabado badan oo ka hor joogsaday dadkii inay isdiiwaangeliyaan oo ay ka mid tahay anteenayaashii oo sidii la rabay u shaqayn waayo oo laga sabotage gareeyay waxaa nagu dhacay kombiyuutarradii oo cilad fara badan inaga timi waxaa nagu dhacay mashiinadii oo qaar naga xumaadeen oo saacada la sugayay ama yoom dhan waxaa nagu dhacay xitaa maanta u dambeysay tiim ka mid ah tiimamkii shaqaynayay oo accident galay oo halkoodii cid loogu soo bedeli jirin waxa soo dhan waxa noo weheliyay dadkii guuray oo aad u fogaaday oo socodkiina aad iyo aad noogu adkaaday oo si ka adag sidii gobolada kale la isaga diiwaan galiyay oo xukuumadeena iyo komishanka qaranka ay ka warhayeen waxaanu codsanay iyadoo abaar xun oo gobolada kale ka adagna ay jiidan ka jirto dadkii ay hawd iyo meel fog wada hayaameen oo reer guuraa u badnaayeen waxaanu codsanay in muddada la deynayo goobaha marka 7 cisho hore dhamaato naloo kordhiyo waxaanu codsanay in kidadkana naloo kordhiyo muddadana naloo kordhiyo leg jalaq noomaysiin komishanku arrintaas dhagahay naga fureysteen sida awgeed galabta waxaan loo keenay team kaliya oo leeyahay waa mobile oo 5 meelood oo degmada kamid ah midba 4 cisho joogayaan leeyiri meel 5 cisho joogaya arrintaasna arrin aan aqbali karayno ama dadkii xuquuqdii ay lahaayeen ay ku gudan karayaan ma aha macnaheedu waxa weeye xaq uma leedin reer Balgubadle inay isdiiwaan galisaan taasna midaan aqbalayno iyo mid aanu yeelayno ma aha gabi ahaanba waxay taas nagu qasbaysaa inaanu diiwaan galintii si rasmi ah uga baxno ta Hargeysa ka dhici doonta iyo tan 7 cisho wixii ka dambeeyay inaanu si rasmi ah u qaadacno ayay nagu qasbi doontaa hadii aan komishanku talaabo degdeg qaadin iyo xukuumad ahaan aan dib la isugu noqon arrintaasi arrin nabadgelyadeena iyo jiritaankeenna wax u dhimaysa iyo qarannimadeena weey hadday sidaa ku socoto assalaamu alaykum bismillahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam marka hore waxaan doonayaa inaan si fiican aan uga hadalno sidii dadkii ugu horeeyay ay ka hadleen xaaladda guud ee gobolka ka taagan iyo diiwaangelinta ka socota habka u socoto oo aan ahayn hab waaqaca la socota waxaanu cambaaraynaynaa sida dhaga adayga faraha badan iyo bareerku ku jiro ee gobolkan ay komishanka iyo xukuumaddu uga dhaga adeegeen codsiyada ka soo yeedhaya waxa halkan yimi koox ka socota xukuumadda koox ka socota komishanka iyo xisbiyada intuba waxay indhahooda ku arkeen deegaankan goob walba way mareen waxay indhahooda ku arkeen inaan cid joogta aanay jirin goobuhu ay maran yihiin sidaa daraaddeedna dadkii hayaamay soo celintoodina ay qaadatay hawl badan oo ka mid ahaa sidii gobolada kalaba diiwaangelintu uga dhacday si ka duwan inay halkan uga dhacdo waxaanu ognahay oo ummaddu ay ka wada war haysaa markay burco ka socotay diiwaangelintu in laga soo gurayay hawd guntii 200 oo kiiloomitir oo gudaha Itoobiya waxaanu arkaynaa in Djibouti xadkii la furay oo dadkii laga soo daadgureeyay gobolka Awdal oo dadkii Djibouti oo dhan xadkii inta loo balaqay la keenay oo waqtiga loo kordhiyay ayaanu arkaynaa intaaba cid riixaysa ee qabatay xukuumadda iyo komishanka waxaanu u bandhignay halkan dhibaatada taala abaarta taala ciladaha faraha badan lee ku yimi waxaanu arkaynaa markaa in runtii ay aad iyo aad uga dhagaadeegeen waxaanu doonaynaa iminka inaanu si bareer u dhiibanno go'aanka u dambeeya ee aanu ka qaadanay deegaan ahaan diiwaangelinta markii aanu aragnay in 7 cisho markay dhamaadeen ee dadkii iminka uu soo afyeeshay wax soo lugeeya iyo wax meel ka soo wareegaba 2 cisho u dambeeyay goobihi ay soo buuxsameen in la yiraahdo kid kaliya la idin reebaya kid kaliya ayaa la reebayaa 28 cisho arinta aad baan uga soo horjeednaa komishanka doorashooyinkana waxaanu leenahay qaata kidkiina hadda la noqda mana aqbalayno haddii aan sida wax laga bedelina runtii go'aanka iyagu wuxuu noqon doonaa mid sidan iminka ka adag waxaanan ku boorinayaa ummadda oo ku dhiirigelinayaa
in dadka cadaalad loo sugo dadka in la dhageysto dadka waxa weeyaan xaq bay u leeyihiin inay isdiiwaangeliyaan inta dad isdiiwaangelinaya ay joogaanna in awoodeeda la yeesho in wixii dadku u baahan yihiin ba loo qabto ayaanu doonaynaa intaasaan kusoo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله marka hore saxaafadda iyo martida baqan salaamaya mar labaadka waxa weeye arintan commissionka ee laga hadlayo dadweynaha diiwaangelinta imika waxaanu ka nimi goobo ay imika kayugu taagay 200 dadkuna waxay haayeen dad jilicsan oo abaari ku dhacday oo meelo fog laga soo daadgureeyay oo lagu kharash ku baxay oo hawl iyo dhibaato ku baxday markii muddo ilaa 3 cisho 4 cisho ka hor intii ka dambeysay ayuun bay dadku soo afyeesheen waxa jira goobo uu ka maqnaa 3 cisho uu ka maqnaa sanduuqu oo maalintii dambe la keenay 3 cisho markuu ka maqnaa iyada lafteedii sidii bay waqti baa waxaanu qolada commissionka ka codsanaynaa oo mar labaad ka codsanaynaa oo ku celcelinaynaa oo war dheer u sheegaynaa in dadkan haday mas'uul ka yihiin xuquuqdooda ilaaliyaan inay xaba ka goostaan ma hayo ka shaqeystaan laakiin waa inay ummadda u shaqeeyaan oo dadkooda jilicsan halkan wadhan imika haday soo arkaan haday qolada saxaafaddu way soo sawiri doontaa dadka jilicsan ee abaartu jilcisay haddii la yiraahdo maanta kaabada laga qaaday waxa la geeyay sayla ma qofku masaylu kaga daba tagaya waa mushkilad cusub oo wajhi cusub keentay waxaanu codsanaynaa dadkii inay imanayaan shanta goobood ee xadka ku teedsan in loo daayaabanu ka codsanaynaa commissionka oo mar labaad ka codsanaynaa mar saddexaad ka codsanaynaa haddii kale waa danaystayaal aan iyagu dantooda u intay fushadeen danta ummadda eegaynin wassalaamu calaykum waraxmatullah صلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المركة هراء إلهي بندوم هاد نقينا مرلباتك ضياشا هل كان كهاد لينا وان هاد نقيا صحافة الدبا أرنتن رنتي intaanay bilaabmin baan ka hadlay markii la soo jaangooyay leeydi xilligaas lagu beegay baan marka hore ka hadlay waana la dhageysan waayay marka laftigeeda markii imaka la furayayna waan ka hadlay ka hor waa laga hadlay markaana waa la dhageysan waayay waxaan ka xishoonay inaanu ka dajino inaanu nidhaahno laga dajin maayo qalabka ee gawaadhida iyo inamada meesha la keenayba han noqdaan anagu Soomaaliland xeerinayna oo wax gaaraad moodeynay iyo dana gaaraan anaga iyo mas'uuliyad gaar naga saarantay waxaanu ka xishoonay inaanu nidhaahno halkan waxba lagu qaban maayo iska noqda bilowgii intaana waxaanu ka hadlaynay ha arkaan duruufaha meesha yaala da xukuumadda hadda xisbiya tahay iyo hadda commission tahayba meesha way yimaadeen oo mar iyo lababa way yimaadeen way arkeen duruufaha meesha yaala way arkeen dhibaatada meesha taala way arkeen baahida loo qabo waxan way arkeen dadku inay doonayaan inay barnaamijkan galaan way arkeen haddana jaangoyntan ay sameeyeen iyo barnaamijkan ay sameeyeen waxaan u malaynayaa markay waxaan miisaamayeen inay ka fakireen un magaalooyinka waaweyn oo magaalooyinka waaweyn marka dad ay gafaan inay isdiiwaan geliyaan in xaafadaha mobile team loo sameeyo waa macquul laakiin dad guuraya oo reer miyigo xilligan ay ku jiraan hadda waran tahay oo xilligii ugu xumaaytay oo ninkii 100 neef lahaa 50 ay ka baxday oo 50kii kale la xarbiyaya meeshii aad ku soo hagaagileed waa laga rarayaa bahalkii oo meel kale haddana la geynaya way aqliga ka yareeyay waxa loo baahan yahay qofku inuu xisbad sameeyo annagu ixtiraam badan baan u sameeynay waxaanu u sameeynay inay barnaamijkooda u socdo laakiin iyagu dadkii iyo dalkii midna ma ixtiraamin wixii aanu lahayn iyo wixii aanu ka codsanaynay iyo wixii aanu sheegaynay midna ma dhigaysan
soomaalida hadday tidhahda nin meele ka cad dee meele ka madow iyaga waxa u cad in barnaamijku u hirgalo oo fujiskaa gaaladu siinaysana dee ay iska gurtaan laakiin ma dareemayaan dhibaatada haysata dadka ma dareensana dhibaatada haysata dadka waa nin gaadhi ee siile iska fuushan iyo nin dee halkaa ku cabaya casiirka ku cabaya hargeysa dee dadkan siday ku nool yihiin iyo siday meesha ku imanayaan maba ogaba ninkaa aan sheegayay dee inta neefafka iyo u hadhay ee cirka eegaya ee daruurta maalin walba ka faalinayna kaalay oo intaad ka soo lugayso meel heblaayo cidlaa ku soo dhac wuxuu ka dhignaanayaa dee ninkii laxdii reer burceel la yidhi darka cidladaa intay ku soo hagaagtay way dhimatay oo laftaa ka baxday ninka dee meeshii loogu talagalay cidlo iyadoo ah ku soo dhaca saasoo kale dee wadnigiisu taagaya ee cadceeddaana soo lugay marka waxaanu leenahay horena waanu idinku sheegna waxaanu tidhi tiimka ha keenina tiimkaa uma baahinoo baahi uma qabna ha keenina haddaydaan samaynayn intaa xuduudda ku taxan inaad joogto ka dhigtaan 21 cishee dhiman tiimkana waa la noqonaysaa markii hore haddaanu dee xeerinaynay somaliland oo idinku xeerin weydeen waanu idinla qaadanaynaa xeerin la-aanta taa ku dhaqmaysaan ee aydan somaliland iyo cidna danaynayn baanaan annaguna idinla qaadanaynaa annaguna cidna danayn mayno somalilandna danayn mayno waxaanu leenahay waa la noqonaysaan haddaa systemka aanu doonayno yeeli weydaan ummaddu doonayso annagu dee ummaddaanu ka midna haddaa taa yeeli weydaan annana yeeli mayno haddii idinka sharcigiinu meel idinku qoran xaashiye yarar meel ku qorateen annana mid baa noo qoran annagana ka noo qoran wuxuu nafarayaa inaanu daasadihiina idiin soo celino taasoo annagana nafaraya sharcigayagu marka waxaan leeyahay waan ku celcelinayaa alaabtiina la noqda iyo carruurtiina meesha keenteen haddaydan taayada fulinayn anatiina fulin mayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu